dowladihii gacanka khaliijka ee mar lagu yaqaanay midnimo dana wadaag iyo isbahaysi istiraatiiji ah waxay maanta wajahayaan isu dabarjeedin halis ah oo aan mar dambe la sii qarin karin khilaafaadkooda saaxiibo shalay u muuqday inay hal saf ku jiraan ayaa maanta u kala jabay laba jiho oo iska soo horjeeda jiida lagu dagaalamayana ma aha Abu Dhabi ama Riyadh ee waa dalka Yemen ciidamada Sacuudiga ayaa qaaday tallaabo military oo culus iyaga oo si toos ah u beegsaday golaha ku meel gaarka koonfureed ee ay si buuxda u taageerto Imaaraadka Carabta kani ma aha howlgal caadi ah balse waa fariin istiraatiiji ah oo si cad u muujinaysa in xiriirka Sacuudiga iyo Imaaraadka uu galay marxalad khatar ah waxaan si gundheer u eegaynaa waxa dhab ahaan ka socda Yemen sababta Sacuudiga hadda uu u dhaqaaqay halka uu ku dambeeyay qorshihii Imaaraadka iyo cidda ugu dambeyn ka faa'iideysanaysa qalalaasahan sii xoogaysanaya ku soo dhawaada Tifaftir Media bilowga sanadka 2026 Yemen waxay gashay wajigii ugu khatarsanaa tan iyo burburka dawladii dhexe ciidamada Sacuudiga oo kaashanaya xoogag ka tirsan waqooyiga Yemen ayaa ku dhawaaqay howlgal military oo ballaaran kaas oo si toos ah loola beegsaday golaha ku meel gaarka koonfureed ee STC golahan oo sanadihii la soo dhaafay ahaa gacanta ugu muhiimsan ee dawladda Carbeed ee sutaga Imaaraadka ayaa si lama filaan ah isu arkay inuu yahay bartilmaameed toos ay u beegsanayaan ciidamo ay shalay wada safnaayeen su'aasha halkan taagan waxa ay tahay maxaa isbedelay si sawirku u dhameystirmo waa inaan isla eegnaa Suudaan isla waqtiga ay Yemen xaaladeedu calawsan tahay ciidamada qaranka Suudaan ayaa qaaday howlgal military oo ballaaran oo ka dhan ah xoogagga RSF warbaahinta Imaaraadka lafteedu waxay qirtay in RSF ay la kulmeen khasaare baaxad leh taas oo micnaheedu yahay meel kasta oo Imaaraadku ku tiirsanaado kooxo hubaysan oo ka baxsan dawlad qaran waxa ka dhalanaya burbur dagaal iyo kala qaybsanaan maanta golaha ku meel gaarka koonfureed ee Yemen ma joogo halkii uu shalay joogay warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in hogaamiyayaal sare ay u qarxeen Imaaraadka Carabta qaar kalena ay raadinayaan dalal kale sida Hindiya dagaal culusna ay socdaan iyada oo saldhigyadoodii ugu waaweynaa bartilmaameedku yahay tani waa marqaati furka in golahani uu ahaa mashruuc ku tirsanaa taageero shisheeye balse aan lahayn saldhig qaran oo dhab ah hadalkii caanka ahaa ee ahaa khaliijku waa mid maanta waxa uu galay buugga taariikhda Sacuudigana waxa uu Imaaraadka u arkaa khatar amni dal aan la isku haleyn karin iyo xulafo isu bedelay loolame sidoo kale Imaaraadka Sacuudiga uma arko saaxiib balse waxa uu arkaa caqabad ka hortaagan qorshihiisa ballaarinta saameyntiisa gobolka goobta lagu dagaalamayo waa Yemen laakiin dhibanaha ugu weyn waa shacabka reer Yemen warbaahinta Imaaraadka Carabta iyo tan raacsan golaha ku meel gaarka koonfureed ee STC waxay bilaabeen olole cusub iyaga oo hadda ku eedeynaya Sacuudiga inuu la saftay kooxo Yemen ka jira oo taageeraya kacdoonka Gaza isla markaana la shaqeynaya ikhwaanul muslimiin eedeymahan waa kuwo hore loo yaqiinay oo lagu beegsado qof kasta oo ka hor yimaada siyaasadda Abu Dhabi waa hub warbaahineed ee ma aha xaqiiqooyin dhulka ka jira gudoomiyaha gobolka Hadramaut ayaa si rasmi ah u shaaciyay howlgalka hadda socda oo loo bixiyay howlgalka gaashaanka qaranka ujeedadiisu waa la wareegidda xeryaha military dib u soo celinta maamulka dawladeed iyo joojinta kala qaybsanaanta Yemen Sacuudiga wuu cadeeyay inaysan tani ahayn howlgal samafal balse uu yahay dan qaran oo toosa Sacuudiga waxa uu si buuxda u fahmay in qorshayaasha Mohammed bin Zayed ay si toos ah u khatar gelinayaan ammaanka boqortooyada gaar ahaan dhinaca koonfureed fikradii ahayd walaalo khaliijka ah ayaa nahay waxay haatan ku burburtay danaha dhabta ah ee labada dawladood kala leeyihiin maanta Sacuudigu waxa uu ku shaqeynayaa siyaasadana ku dhisan mana aha mid saaxiibtinimo badiil ah helaysa isbahaysigii loo bixiyay duufaanta go'aanka adag caasifatul hazm maanta waxa uu noqday magac maran dalalkii hore ugu jiray sida Masar Pakistan Suudaan iyo Bahrain dhammaantood waa ka baxeen cidda kaliya ee ku hartay waxay ahayd Sacuudiga halka Imaaraadkuna uu ku dhaqmay xeelad ah waan baxnay balse dhab ahaantii faraha ayuu ku hayay gudaha dalka Yemen arrinta muhiimka ah oo dad badani ay fahmi waayeen ayaa ah kooxaha ku sugan Sanca oo taageeraya Gaza kuma lug laha dagaalkan hadda socda waxay si taxadar leh uga fogaadeen iyaga oo fahamsan in tani tahay dab la doonayo in lagu jiido dagaalku waa mid u dhaxeeya xulafo hore dana shakhsiyeed iyo loolan awoodeed ee ma aha mid u adeegaya shacabka Yemen haddii qorshaha Imaaraadka hirgeli lahaa koonfurta Yemen waxay noqon lahayd maamul gooni ah oo madax bannaan maamulkaas oo si toos ah ula xiriira Israa'iil sida RSF-ta Suudaan Haftarka Liibiya iyo waxa la doonayo in laga sameeyo waqooyiga Soomaaliya ee Somaliland dhammaan xiriiradaas waxa ay ku jiraan ajandaha siyaasadeed ee Abu Dhabi
sidaas darteed waxa Yemen ka dhacaya maanta si dadban ayay ugu adeegayaan danaha Israa'iil. kooxaha ku sugan magaalada Sanca waxa ay barteen casharro hore gaar ahaan khaladkii Xisbullah ee Suuriya. waxa ay fahmeen in ku lug yeelashada dagaal aan ayaga ku gaar ahayn inuusan ka dhigaynin bartilmaameed isla markaana uu fashalinayo qorshaha uuna furayo albaab cusub oo khatar ah. sidaas awgeed way ka gaabsadeen inay ku lug yeeshaan. waxa maanta ka socda Yemen ma aha dagaal midaysan oo qaran balse waa isku dhac dana shisheeye halka shacabka Yemen ay mar kale noqdeen dhibanayaal. khilaafka Sacuudiga iyo Imaaraadka wuxuu galay marxalad furan, natiijadiisuna waxa ay saameyn doontaa Yemen, gacanka Khaliijka, geeska Afrika iyo amniga guud ee gobolka. waxa adduunka maanta uu indhaha ku hayaa halka ay ku dambayso xiisadda Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Tafaftir Media waxay isku dayaysaa inay sii wado la socodka dhacdooyinkan inaga oo soo gudbin doona falanqayn qoto dheer iyo xaqiiqooyinkeeda. ka mid noqo saaxiibada nagu xiran intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan.